فسخ marka ay qof oo masaajid joogo wax ma fasakhi karo jiha rasmi ah oo loogu talagalay oo nidaam leh wax fasakhi karto مثلا gabadhan shalay markaad guursanaysi yaad ka guursatay ehelkeeda dadkeeda akhyaar adiga dadkaaga waa la wada fadhisay si sharaf ah lagugu sii haddana waxaa la rabaa haddii la dhaqmi waayo waxaa si fiican ehelka inay is arkaan markii ehelkii oo go'aan ay gaari waayaan markaas jihada rasmiga oo markaas ama andimada ama maxkamadda markaas adiga aad joogtid ama masaajidka kugu dhow oo wax ay qof wax ma fasakhi karo dad wax fasakhi karo waa dad oo ilaahay awood siiya wax fasakhi karo xariga ilaanka ay qof ma goyn karo aniga hadda masaajidkan aan joogaa haddii la ii imaado oo gabar ii timaado oo wax ii sheegto inaan go'aan qaato ma aha in waxaa la rabaa oo adigana masaladii aad baartid oo gabadhii ka dhegaysatid qofkii aad dhegaysatid aa la rabaa laakiin haddii adiga aad dhahdid aniga waxba igama jiraan waxa waaye arrinteydii saan waaye ninkan iga fasakh haddii kale meel kalean aada fasakha shuruuduu leeyahay iska fasakh ma aha ninkii haddii masaruuf laga waayo marasho laga waayo gogashii laga waayo oo ninkii macnaha gabadhii macnaha ooba macnaha damba aan ka lahayn oo isagana la waco markaas oo dadkii oo markhaati iyo haddii lagu furo xarig markaas soo shantiis indhaha oo soo jeeda la goyn karaa laakiin haddii adiga keliga la adiga intaa baxdid oo masaajid aad tagtid oo agtaada ah badnaa masaajidaha waxa ay tagaan gabdhaha qaar ajnabiga ah sida carabta iyo dadka muslimiinta oo nagu nool qurbaha gabdhaheena waxaan leeyahay haddii dhib iyo wax imaado oo adiga aad rabtay ninkaaga mashaakilkiis in lagu xalliyo sheekh Soomaali ula tag sheekh Soomaali ninkuu wacaya ehelkiisu wacaya qaraabadu wacaya xala la gaaraya laakiin haddii nin oo meelahan joogo adiga aad u tagtid oo xogo shilin aad siisid oo waraaqdii lagu siiyo oo ninkii oo meel kale joogo ama Afrika ha joogo aad dhahdid haye aniga khalaas waay waraaqday waatan waa kala baxan marka ma fiican taas waxaan leeyahay in oo macnaha aan la samaynin marka waxaan leeyahay ay qof oo meel joogo wax ma fasakhi karo qofku wax fasakhi karo waxa waaye qof oo jiha rasmi ah wax fasakhi karo marka qofka adiga aad u tagaysin qof oo adiga dhaqankaaga iyo diintaada ku yaqaan u tag ani haddii maanta gabar Soomaaliya masaajidka igu timaado oo arrintan ii sheegto aniga waxa waaye ninkii iyo ehelkii iyo baaritaan sameynaa laakiin dadkan oo masaajidaha kala joogo oo ajnabiga ah oo adiga aan ku aqoonin inta waraaqa u geysatid macnaha howshaas waa laga fiican yahay nimankan waxaan leeyahay ilaahay ka baqa waagi nabiga calayhi salaatu wasalaam fasakh gadaal khulafaa raashidiinta keenan waagi hore waxaa jiray khuluc gabadh oo talaaqadeeda ay gadato iyo furitaan jir marka waxaa la rabaa in ilaahay laga baqo oo guryaha yaa la duminin shaydaan yaa idinka adeeganin fasakha shuruudu leeyahay iska fasakh maaha ninkii haddii masaruuf laga waayo marasho laga waayo gogashii laga waayo alxamdulilaahi rabbil caalamiin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني كلمة waxay ku saabsan tahay fasakha ama xariga oo la gooyo fasakhan yaa lagu degdegin xal kale oo fasakh aan ahayn hal raadiyo ilaahay wada ayuu noo tilmaamay dib haduu imaado ilaahay muxuu leeyahay fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha fiiri gabadha asaga ehelkiis iyo gabadhi ehelkeeda ayaga go'aan gaaray ilaahay subxaanahu wa ta'ala cariiri ma uumin marka waxaa la rabaa in guryaha si wanaagsan loo dhaqo oo aan lagu degdegin ilaahay ha laga baqo caruurta naftooda uma fiican haddii oday jidka uu maro irid uu ka baxo ayagana beri ogow iriday kaaga baxayaan su'aal waxaa lagu leeyahay aabaheen aaw marka haddiiba intaasba laysla joogi oo caruur laysu dhalay ha laysu sabro ragow idinkan waxaa idin leeyahay sabarka muujiya go'aankan degdega ah iyo qalafsanaantan iyo joojiya ha laysku sabro waa laysku sabraa sabarka
horumar lagu gaaraa adduun iyo aakhiro. ilaahay qur'aanku wuxuu ku leeyahay wacaashiruuhunna bilmacruuf. marka xalaqadii intaan kusoo xireeyaa. wajazaakum allahu khayr. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.